lacagtu farxad ma keento waa oraah inta badan lagu celceliyo ama qalno bal aan aaminay inteeda badan sidaas darteed waxaan arkaynaa in la boonbooninayo dadka hantiyarida qof walba wuxuu rabaa inuu lacag helo sidoo kalena haddana marka dhinaca kale ka fiiriso dadku waxay aaminsan yihiin lacagta inaysan farxad keenin dabcan dadka qaar way dhici kartaa in lacagta tirada badan ay haystaan ay ku keentay farxad yari ama inay farxadda ka waayaan xaqiiqada dhabta ahna farxadda waxaa laga helaa waxyaabo kale oo macnawi ah maadi ma taas waa isla ognahay si guud ahaan laakiin wax walba waxay leeyihiin asbaab iyo shuruud ay leeyihiin tusaale markaan ku siiyo mujtamacaadka lacagtooda yar tahay waxa dib u haysto caafimaad ma qabaan waxay u baahan yihiin lacag si isu daawayaan waxbarasho ma qabaan waxay rabaan inay dhigtaan waxbarashadii ay sidoo ay rabeen ay ka gaaraan waxay rabaan inay waxyaabo badan sameystaan guriga taan xataa qaarkood reer dhistaan macnaha qofka haddaad wareysato hadduu waxaas heli lahaa muxuu heli lahaa wuxuu ku leeyahay haddaan caafimaad lahaa aad baan qalbiga u qaboobi lahaa waa farxi lahaa ku leeyahay haddaan waxbarashadii dhammaysan lahaa waxyaabo badan samaysan lahaayo waan qanci lahaa ku leeyahay waa farxi lahaa haye intaas dhan markaad fiiriso dadkay lacagta ka maqan tahay oo ay kaga xiran tahay intaas soo sheegnay dabcan muhiim ay u tahay sababta waxay qayb ka tahay wadadii ay ku heli lahaayeen farxadda waajib ma ahan qof walbo bani aadan ah inay fikraddaas ku dabiiqmayso dadka fuqarada ee danyarta ee lacagta haysanin lacagtu waxay u tahay waxyaabo badan ay ugu fadhisaa waxyaabo ugu badan ee ay ka helaan ama ay noloshooda ku soo kordhisana laftirkeeda qayb waxaa ka mid ah farxadda ka mid ah marka oraahdaas lacagta la foolxumaynayo ama inay tahay wax xun yani waa oraah qaldan ee aan xaqiiqdana ku dhisnayn lacagta xataa dhanka wanaag haddii laga fiiriyo dadka xumaha ayay ka fiiraan dadka lacagta leh dad wax soo dhaca waaye lacagta dadka leh waa dad xun fikraddaas ayaa faafsan laakiin hadda dhanka wanaaga ka fiirino qofka lacagta leh wuu ku xajin karaa qofka lacagta leh dadku ku caawin karaa qofka lacagta leh asaga ayaa noloshiisa inuu dad kale u baahdo ayuu kaga maarmi karaa macnaha lacagtu waxyaabo badan oo wanaagsan oo farxad lagu helaa ay nolosheena kusoo kordhinaysaa mana ahan in mar walba ay xumo leedahay